dugsiga banaadison waa meel barwaaqo cilmi uu ka buuxo lagu barbaarin ubadkii dugsiga banaadison waa meel barwaaqo cilmi uu ka buuxo lagu barbaarin ubadkii السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta ee dunida dacaladeeda ay ka joogaan khaasatan waxaan salaamayaa maamulka dugsiga iyo maamulka ku-xigeenada iyo ardada maanta qalin toosinaysa maanta waa maalin taariikh ah muddaanteedana wata sababtoo ah maanta waa maalin aan sugeynay taa oo ah in la arko arday Soomaaliyeed oo ka qalin toosinayo dugsiga Facaweyn oo Banaadirson runtii qof walba oo halkan maanta heerkan soo gaaran uu ku haminayo inuu gaaro sida la socotana xaaladda waxbarashada waa jaranjaro isku xiran سأوجد مرة ولا بق هدية تلعب قاعدة وحد كم من ليس تلعب كلنا قاعدة تلعب ده ما تلعب سويني طاوة هنا مان وهنا أرمي مهم يجي هاي هنا كده بينه مرها عن بيرن واو إيش الشقين ما ملك يولدينته كانوا waxay kamid tahay qayb kamid ah horumarka Soomaaliya taa in la arko arday dhalinyaro ah wax bartay Britain ku haminayo inuu noqdo kii dalka samata bixi lahaa anina waxaan kamid ahay ardadii ka soo bilaaday galaaska koowaad maantana u dabaaldegaysa inay galaaskii ugu dambeeyo oo galaaska form 4ka inay ka qalin toosiyaan waxaan dareemi karaa qofkii ka soo bilaabay grade 1 ilaa 2 3 marxaladda jaranjarada sida ay tahay exactly sida saxda ay tahay qofkaas ayaa dareemi karta maanta waxa ay tahay waxaan gaarnay maanta guul weyn taa waa ku hamineen inaan aragno mar wana anagoo qalin toosinay Allah ayaa nala hadal iskala wata oo suurgali inaan guuleysano maamulku waxay mudan yihiin wax weyn oo aan la soo koobi karin hadalna ma lagu soo koobi karo ficilna ma lagu soo koobi karo balse waxaan dhahaa maamulka aad umahadsantihiin sida waxaan wanaagsan aad u geliseen ardayda Soomaaliyeed inaad qalbigooda nuurisaan taa waa in la arko shumac shidan laakiin shumac hadii la shido waxa loo baahan yahay inay ka faa'iideystaan bulshada Soomaaliyeed anagana waxaan rajaynaynaa wixii la baray inaan ugu faa'iideyno bulshada Soomaaliyeed maamulkuna maasiin waalidkana ka shaqeeyeen inaan wax baranay aad ayuu maasiin waxaana farxad weyn la wadaagayaa walaalihii maanta aan qalin jabi qaasatan galaasmanka form 4ka sidaan la soconay iskuulada Banaadirson ardada waa arday isku xiran kuwa oo ah arday had iyo jeer hadii ay wax dhacaan iscaawiyo dhanka waxbarashada dhanka dhibaatooyinka hadii ay dhacaan wax walba ay noqoto kuwa garab isla gala saaran waxaad arkaysaa in xalfad la qabanayo xalfadii la qabanayo in kaaba galaasada ay baxaan meel kale ay tagaan si ay ula wadaagaan meehaas waxa ka jiro ama xalfadda lagu qabanayo xaruntaas inay farxad la wadaagaan taasna waa arrin kale oo aad u weyn oo u baahan mar walba in la xuso runtiina waxaan u muujinayaa bulshada Soomaaliyeed dhalinyaradan inay yihiin dhalinyaro isku xiran laguna matali karo abdaqankoodii wanaagooda dhalinyaradii dalkii samata bixiso ahayd 13kii SYL runtiina waxaan rajaynaynaa dhalinyaradan inay booskaas ama boos u dhigma inay ka soo muuqdaan waxaan rajaynaynaa inay ahaadaan Banaadirson hadii maanta hadii ay ka qalin toosiyeen inay sidii hadda isku xiran yihiin oo la baray ay ku barbaareen inay barbaarintaas wadaan dad isku xiran farxadii wanaaga heerarka kale ee jaamacadaha ka qayb qaato Britain noqdaan dadkii samata bixi dalka Soomaaliya ugu dambeyn hadalkayga waxaan ku soo gudbinayaa ama ku soo gabagabeynayaa bulshada Soomaaliyeed maanta waxay heshay iftiin kaaw mudan in la ifiyo si uu gaaro dalka Soomaaliya idin runtiina hambaliyo ayaan dhahaa dhammaan ardayda maanta qalin toosinaysa